السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا مركل جنال كيغا أسد دارو جنال وحان مانتا إذن وذا حكمته لقد على حكمته هاندي دونيدا إيكا بوشو عان هاكو عيانا شعور تدادك كالي وصورت قال إناد عيارتك قوليستو كقادي دانتي آد كالهيد لكن قطاتك لنيسا وإناد قفكا سويدا قفك دونيستيس شرعي كدقا شرعي لأن ياكو دعا haddii aad doonaysid inaad goyso qof aad jeceshahay ama saaxiibka dhaawaxa kaga tagin qofka qalbigiisa ina siiyay inagama mudna in aynu waran ku taagno ama ilbiriqsi u murugoodo sababna u noqono maxaa ka fiican inaad qof aad kala tagteen in xusuustiina uu ku hadho waqtigii fiicnaa ee aad soo wadaagteen doqonku waxa uu ka hadlaa wuxuu sameyn doono qofka la kadiyayna wuxuu ka hadlaa wixii uu sameeyay qofka la caqliga ahina waa uu shaqeeyaa waxna waa uu qabtaa mana hadlo badanaa waxaa jira qalbiye aan ku nacin si kastood muhiimadda u siinin iyo qalbi ku naco si kastood u karaamayso haddaba doorashada wanaaji laba mar qof ha ka dalban waxa aad u baahan tahay maxaa yeelay marka koowaad sharaf ayay ku tahay marka labaadna waxay ku tahay duulinimo haddii idinkoo raba inaad group photo u gashaan sawir koox ku gashaan ay ku dhiibaan kaamirada oo ku yiraahdaan sawirka naga qaad ha u qaadan inay ka wadaan adiga noogu foolxun ee sawir fiican ka qaad qofka xaflad iyo shir aan loogu yeerin dalaq iska soo yiraahdaa ama dad si gaar ah u sheekaysanay soo dhexgalaa waxaa loo yaqaanaa iscasuumi weligaa ha noqon iscasuumi meel walba ka muuqo waa lagu munaadbeelaa haddii aad tahay shicib waxa xadin been ha sheegin waxa qiyaamin sababtoo ah siyaasiga ma jecla tartanka haddii xiriirka markasta kaa oohiyo fariiso neefso kadibna waxaad isweydiisaa ma basal baan qabaa mise bani aadan waayo basasha mar walba dadku way ka oohisaa kolkii uu rabo inuu aamus ku yiraahdo haweenay ninkeeda ninka caadiga ahi wuxuu ku yiraahdaa naga aamus ninka caqliga ahina wuxuu ku dhahaa bushmahaaga aad bay u qurux badan yihiin marka aad isku qabato haddii aad jeceshahay laba qof dooro kan dambe sababtoo ah haddii aad si dhab ah u jeclay kan koowaad ma aadan jeclaateen kan labaad